كابتن بارا ayaa markaasi dareenkiisa aad u kacay dabcan Mas'uud wuxuu ahaa anaga marka laga soo tago nin saaxiibkeena ah Mas'uud waa dareemi kartaa wuxuu ahaa nin saaxiibkeena nin na garab istaaga nin markaasi markaan muuqaalada duwan xitaa waxyaabaha yararka u baahnaa naga caawin jiray haddii maanta la dhaho sheega inta nooga soo qaban ninkii waxa waaye noo keen jir laakiin maanta sariir uu saaran yahay waana iil qof 3 bilood sariir saaran aanan istaagi karin oo lugtiisa dhaqaajin karin haddana waxaa ka sii ciishooday dadkii faa'iigii aan la socon jiray aan wax la baran jiray iyo waxbarashadii iga habsaamtay bismillaahi raxmaani raxiim waxaa maanta markaasi aan soo booqanay Mas'uud Axmed oo ah Mursal Axmed walaalkiisa kaasoo markaasi dhawaan dhaawac uu soo gaaray aadna markaas u xanuunsanaya lana sheegay in halkan waxaan lagu qaban karin dhaawac markii lugaha hoos oo dareenka ay ka dhinteen dhabtii waana dareemi kartiin marka ay marxaladda noocaas imaado haddana waxba aan laga qaban karin dadkiina aysan awoodin dhaqaalaha ay lacagta ku baxaysa marka la aado waddan ka duwan Soomaaliya ticketka viisaha plus deegaanka iyo lacagaha baaritaanada iyo waxyaabaha kale markaasi dheeriga u baahan yahay qalin ha noqoto way ka qaalisan yihiin lacaga markaasi $2,000 waa sidaa daraadeeda waxaa maanta markaas soo booqana sidii aan u garab istaaglayn walaalkeena Mursal walaalkiisa Mas'uud oo markaa dhaawac uu soo gaaray waa wiil yar oo hadda markaas da'aada 20 ka galaya mustaqbal fiican lahaa arday ah wax baranayay hadda waxbarashadiisii ay ka habsaamtay sidoo kale markaasi sariir markaasi wala jiifa muddo markaasi dhowr bilood ah waxaan rabnaa inaan saacidno oo lambarka shaashada markaasi ka muuqda oo Mursal markaasi uu ku qoran yahay aad la soo xiriiri kartaan si markaasi wixii aad awoodaan halkaad aad ugu soo dirtaan idinkana markaasi ajri xasanaad ka heli kartaan sidoo kalena ay tahay caawin walaal oo uu garab markaasi nooga baahan yahay walaalkeena daada yar Mas'uud oo markaasi u baahan in aan markaasi ku dhiirigelino sidii lugihiisa ugu istaagi lahaa maxaa yeelay dad ayaa markaasi dhibaateeyay oo hadda markaasi ilaa haatanba gacan aan lagu haynin laakiin weli markaasi lagu raajoogo maadaama kaamirooyin wax badan markaasi laga baarayo sidaa daraadeeda aan garab istaagno lambarka shaashada ka muuqdana aan ku saacidno Mursal iyo familkiisaba arrintan waxay ku tahay murug weyn culays weyn mana ahan wax markaasi ayaga ay xamili karaan waa la ogyahay wadamada markii la aado ha noqoto Turki ama Hindiya ama meelo kaleba markii caafimaad loo aado isbitaalada waxaa laga yaabaa 50,000 30,000 inaa kor u dhaaftid ilaa 100,000 ku dhawaad markaasi qarasha lagugu soo dalaco taasina ay tahay wax markaasi xanuun badan qofka binaadamkana markaasi uusan awoodin السلام عليكم مسلمين تميل والبأجوكتين رتواني سلام كان يقول سلامي السلام عليكم إن ما أنت أنا وحن قرب تاجنا ولكن أنا مرسل إيه ولكن أنا غير ما أرتي مسعود وما أرتي ننقل يرى قلب فورا أما ما أنت هدي أما قالك أرتي الشرف وكل سلامة وانا أصلا مركز كم وقت أنا وأجنها أنا قردن حواي ما أنت إن ولكن مجعلين أصلا إنه سيدان ما أرتي ونقدر لكن قدر إلها إما ضي haddaan nahay anaga tiimka Tambaarana waxaan aad ugu fiicanahay garab istaaga aad ugu fiicanahay waxaan dhihi lahaa qof walbo damiir walaalnimo ku jirto ama qof walbo danqanayo oo bini'aadanimo ku jirto in ma aragtay garab aan siino walaalkeena maanta waa ogtihiin qofka markii dib uu haysto ama problem uu ku dhex jiro waa ogtihiin dhibaatada uu dareemayo anagana dhibka asaga maanta walaalkeena Mursal ama familkiisa ay dareemayaan aan ma aragtay aan anagana ka gubaneynaa dhibdhaamo ilaahay waa ilaaha qof walba dhibka ka qaadayo qof walba bini'aadanna maalinay ku imaan doonta ama ana ha noqoto ama qof kale ha noqoto Mas'uud wallahi aniga dareenkayga aad u isku bedelaa waayo nin wuxuu ahay markuu meelaha qaar ugu arko aad ii sharfo i qadariyo oo ma aragtay xushmad bini'aadanimo ku dheehan tahay nin dhalinyaro wax iska baranayo oo maanta ii sheeg dugsi sare ama jaamacad ama waxyaabo qaar haminaaye oo saan noqdo adigoo aabba ama hooyo ama walaal maxaa dareemi lahayd waa waxa annaga maanta aan dareemayno halkaan na wada keenay inaad dareemay sida huwaal ah waxaan dhihi lahaay ilaaha wax caawini karo ilaaha wax walbana ma aragtay
maaragtay u sahli karo qof walba oo bini aadane marka anaga nigama maarano team Captain Bara horena aniga weli anoo saan ama ma aragtay niyadeedu saan nima hor imaanin qof walba oo walaal ah marmarka qaar inaa wax isiino waxaa ka wanaagsan duca hataa duco in ma aragtay ana la garab istaagtaan kii ma aragtay sameyn karan inuu ma aragtay arrintan qayb ka qaatana ilaaha ajri xasanaad ka siinaayo nin 18 jir ah ama nin dhalinyaro ah oo maanta ma aragtay lugihii aana waxba ka qaban karin oo dhaqaaq aana lahayn waa dareemi kartaa dhibaatada intay la eg tahay marka waxaan dhihi lahaay ilaahay dartiisa aan u wada istaagno walaalkeenana aan kusoo garab istaagno wixii aan isdhihi karno waxaan wax waa ugu qaban kartiin iyo ducaba ilaahay ma aragtay dhankiisa ee tahay idinkana dadaal muujiya wax walbo macluumaada ama ku saabsan in ma aragtay walaalkeen loo garab istaagana shaashadaad ma aragtay kala soconaysiin wixii lambar ama taleefon ah mursalana kala soo xiriiraysiin wixii lambarada meesha aan soo saarno mursala wato ilaahayna ma aragtay idinkana garabkiina ha galo mascuud insha allah hadduu ilaahay raali ka dhiga ma aragtay wax walbo waqtigu ilaahay idmay dhammaanayaan adoo lugaha ku socotidna waa la arki doonaa ma fahantay niyadaada mar walbana kheyr u sheeg ya dhibdhaamo ilaahay waa annaga bini aadanaa nahay waa qiilinaynaa meel allaala meeshaa ma aragtay aan gacanteena gaari kartana waa gaarsiinaynaa ma fahantay laakiin dhib walba inuu ilaahay kaa qaadi karo mar walba taladaada saaro nin ahlu salaada ahayd inta aniga aan kaa warqabo wax walba imaadan alxamdulilah dheh wax walba ilaahay mahadiis waaye marka muslimiinta meel walba aad joogtiinna waxaan leeyahay garabkiina allah galo ilaahayna idinkasaa jeceshiin allah niyeel nin walba maanta dhib ku filan inuu haysto aa dhici karto ummadda ma aragta kii wax haystaba iyo kii wax aan haysano dhibaa iska haysto marka aadan ii salaamaha marka hore waa idin salaamaynaa dhammaan qof walba oo muuqaalkan soo gaaray ama daabanaya muuqaalkan oo dareenkiisa gaarka ah wata marka hore aan u duceyno walaalkeena Mascuud oo ah mursal walaalkiisa anaga dhammaan walaalkeena ah musiibada ku dhacday iyo qadarta dhacday marka ugu horeysa waa in qof walba uu ku qancaa waxa dhacay sababtoo ah adoomada markuu ilaah xasuusto uu imtixaana marka imtixaankay qayb ka tahay waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu ilaah abaalmarinteeda siiyo qof maanta dhalinyaro ah waxbarasho ku jiray oo maanta ahaa ubixii dalka hami lahaa oo mustaqbal lahaa hadday musiibadan ku dhacdo waxaa la rabaa in lagu waana qaato oo qadarta ilaah lagu qanco taasna alxamdulilah waxaan dhammaan ugu baaqayaa dadka muuqaalkan soo gaaray ama fariintan arkay maanta inay dareemaan sida ay noqon lahaayeen marka ay xaaladda noocaana ay la kulmaan waxaan rajeynayaa insha Allah in loo soo duceeyo marka hore ilaahna la garab galo juhdiga iyo dadaalka iyo waqtiga lagu bixinayo inuu ilaah u aqbalo qof walbana waxa uu awoodo oo kaalmo ah ama caawinaad ah inuu la soo garab istaago anaga ahaan waa ka xunnahay wixii dhacay maanta dadaan la fahmaynin oo aan la kasaynin oo ogeen bas ay wax u dhaceen iyo dhibaatada ay geysteen inay intaan la eg tahay laakiin adduunkan korkiisa isaga istiraexaya ayaa arrintan sameeyay waana dareemi kartiin xaaladda jirta iyo waddanka meeshuu maraayo qof walba waxaa looga baahan yahay taxadirkiisa inuu badnaado waxyaabo badan oo fudeedaa jira qof maanta waxaan fudud geystay hadda waxaa ujeedin xaaladda Mascuud kaliftay sababay waxaan ilaah ka rajaynaynaa inuu uga aaro xaaladan dadkii ka dambeeyay ama sameeyay hadduu baaritaan socdana in gacanta lagu soo qabto anagana waa ka xunnahay si wax u dhaceen laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan garab istaagi doono heel iyo hoo iyo ducaba insha Allah aadaan u mahadsantihiin ummadda muslimiinta meel walba ay naga daawanayaan jimco wanaagsan asalaamu calaykum waa xilli salaadii khudba aan ka soo baxnay waxaan soo booqannay walaalkan mursal oo walaalkiis Mascuud uu ku xanuunsanayo degmada Waaberi dhibaato gaartay uu ku waayay caafimaadka iyo dareenka lugihiisa waa dareemi kartaan heerka marxalad ahaan marka ay joogto in dalka aan waxba looga qaban karin sidaas ay tahayna waxaa maanta loo baahan yahay dadka muxsiniinta shalay wax baxsan jiray inay maanta walaalkeen Mascuud oo ah wiil daayar ah
oo waxbarasho ku jiray in maanta waxbarashadiisii laga habsaamiyey uu sariirtaas jiifo maanta musqusha aadi karno kaadadiisii maanta bac looga qaadayo marka waxaan ka codsanaynaa ummadda muslimiinta muxsiniinta meel walba ay joogaan inay maanta ajir ka raadsadaan walaalkeen Mascuud oo ay soo kaalmeeyaan saaxiibada igu horeeya sheegay nambarka shaashada ku qoran ayay dabcan la soo xiriiri karaan qof walba maanta ma la dhahayo wax badan baxso qof walba maanta wixii awoodiisa xitaa ducada ugu yar inuu ducada ku soo kaabo laga yaabay qof maanta salaadii jimcad dugtay dhul barakaysan jooga inay ducadiisa wax u qabato ay wax u tarto marka waxaan codsanaynaa qof walba muuqaalkan soo gaara inuu dabcan si dareen leh uu kaga falceliyo una duceeyo kii muxsina wax baxsan karne inuu ilaahay gacantiisa miskiinkaas Mascuuda uu wax ugu soo dhiibo caafimaadka waxa waaye tartiib u imaadaa laakiin xanuunku waa hal mar Mascuud aniga xaaladiisa waa ka warqabay markay oo xaaladan galay anigana maalintaas waxayd maalinta isbitaalka galay anigoo isbitaalka jiraa la ii sheegay inay xabad ku dhacday mursalan soo wacay oo isla hadalnay marka aniga isma dhihin ilaa heerkan ay soo gaaraysaa laakiin wax walba waxa waa qadar rabbi waaye sidii ahaataba waxa waaye natiijada soo baxday waxa ay noqotay asagoo daayar oo 20 jir ah maanta in xaaladiisan ay noqoto bacdaas oo ku kaadiyo inta dambe isan dareen yeelanin wallahi aniga markii aan mursal arkay xaaladiisa sida ay tahay aniga mursal kaga ma baranin in uu meel soo fadhiisto dhaw wax baan u baahanahay mursal wuxuu ahaa in reerkiisa ku filan waalidiintiisa ku filan dhalinyarada ka qusul siiyo waxyaabo majaajilan way wax kale aan loogu tagi jirin TikTok-giisa laakiin maalinta ilintiisa arkay xaaladda cunugana aan arkay wallahi waxaan garaystay qof kastoo bini aadan ah maalin inuu garab u baahan yahay way cadaatay maalintii la taagan yahay haddii uu idin madadaalin jiray hadduu idin ka qusul siin jiray hadduu farxadiina ka shaqeyn jiray maanta murugtiisa waa inaad la garab istaagtaan waad farxad uga bedeshaan oo meesha aan ka qaadnaa wiilkan anagoo dhan waxaan halkan isugu imaanayaa waxay tahay qof caafimaad haya ma jiro laakiin haddii adiga gacantaada ay wax ku jiraan walaalkaagana oo ka dhibaataysan yahay aakhira xataa adiga waa lagu weydiinaa adduunya iskaba dhaafee marka waxaan ka codsanayaa ummadda muxsiniinta sida ay sheegeen dhalinyaradii igu horeysay iyo dhammaan asxaabta inaan garab istaag buuxa aan u muujino oo maanta mursal garabkiisa aan istaagno hooyo ilinteeda aan tirno oo wiilkana farxadiisa aan ka shaqeyno oo jeclaa inuu banooni ciyaaro oo jeclaa inuu dhalinyaro isla socdo aniga ninkaan aan u jeediyeen guriga igu imaan jiray wuxuu ka mid ah dhalinyarada aniga ii kaalmayso haddii habeen noqoto inaan wax u baahdo asaga ii soo qaban jirin insha Allah ilaahay waxaan ka rajeynayaa caafimaad buuxo waadna caafimaadaysaa lambarka shaashada ku qoran yahay qof walba u duceyn karo qof walba gacantiisa soo gaarsiin karo iyo qof walba u imaan karo dad way jiraan wax iska sheegayaan laakiin wax la sheego waxa ka fiican wax la shahuudo ama la arko mursal waa taqaaniin waa bariyo degan yahay meel laga dhumaayo ma degno haddii aad imaadaan waad arki kartaa Mascuud xaaladiisa wixii la sheegay iyo wixii aad aragteen bal isku fiiri aqligan saliimka ilaahay wuxuu noo siiyay xayawaanka uu nooga duwaya waxay tahay inaan ku fikirno oo wixii wanaagsanna aan ku soo saarno maanta anagoo garab nooga baahan yahay garabkiisa aan istaagno insha Allah dhammaan aad u mahadsantihiin dhalinyarada maantana soo booqatay oo maanta walaalkayga soo booqatay ninka walaalkayga waxa waaye muddo 3 bilood saan u saareen sariirtan 3 bilood dhaqaatiir badan iyo isbitaalaan kaga daba wareegaynay oo qarash badan noogu baxay waqti badan noogu baxay maanta marka waxay tagtay in la dhaho dibadaha geysta dibadana ugu soo orod ma ahan aad dareemi kartaa waxa waaye qarashkeeda aad u badan yahay annagana dee wixii waa naga badnaatay way naga weynaatay marka waxay ka tegi weysay maadaama wiil Soomaaliyeed uu yahay Soomaali weyn in arrintan la dhex keeno Soomaali weyn waan aaminsanahay inay arrintani arrin ka weyn xalin karaan marka dhammaan qof walba waxaan uga mahadcelinayaa ama waxaan ka codsanaa walaalkayna igu soo duceeyay marka hore qofkii wax igu tari karna inuu wax igu taro dhammaantiin aad u mahadsantiin mursal waxaan rabnaa lambarada laga helayo ma aragtay in aad ma aragtay asaan noo sheegtid oo haddana ma aragtay sida meesha loo soo saaro lambarada labada lambar oo ma aragtay laga heli karo haddii mid aad ma aragtay ka maqan tahay midka kale lambarada waxay noqonayaan furaha eber 10 7 kan kalena waxaa noqonayaa 8 9 1 mursal wax walbana waqtigooda iska dhamaanay xanuunka adiga maanta ku haayo anagana woona hayaa
intaan nool nahay ama intay naf nagu jirtana waxa waaye annaga garabkaaga kama bixi doono. Mar walbana waxaad ogaataa qadar inay tahay. For my life ma dhicin mursal inuu meel soo fadhiisto. Laakiin danta markay imaado ugu wax walbo ma aragtay in ma aragtay la sameyn karo. Marka ilaahay waxaan ka baryeynaa sidaan wax u rabno si walba annaga bini aadanana saaran ma u qaylino, laakiin ilaahay subxaana qaadirka wax walbo ballan qaadi karo. Marka nin ilaahay ku xiranna inaad tahay, famil aad iyo aad u qalbi wanaagsan inaad ka dhalatay, oo maanta hooyo ama aabbo ama ehel oo ma aragtay dhibkaaga kula dareemayana inaad ku dhex jirtid. Ool waxay nin keligiisa in wax walba oo maareyn karo, wax walbana sameyn karo, oo maanta maalinaasaan dhacaysataa qofna ma filinaynin, laakiin qadar imaado waa insha allah wax walbana way iska dhammaanayaan. Adigana niyadaada khayr u sheeg, annaga garabkaagaa nahay, dad walaalahaagaa nahay, meelan kaaga harayn ma laha. Maanta waxaad ogaataa haddii annaga aan ma aragtay garab istaag aanu kuu muujinin, biri qof walbo annaga naga mid ah dhib imaan karo. Marka ilaahay dhib ha naga haayo insha allah, isbedelna wuu imaanaa. Walaalkeena Mascuudna waxaan u rajaynaynaa in ma aragtay lugihiisa uu ku istaago. dabcan Mascuud saa u jeedin waa kaa mursalna ma ahan mursalkii hore aa markaa taqaaniin. mursal ileen maalmahan dhan wuxuu ku mashquulsan 3 bilood ugu dambeysay walaalkiisa oo marba dhinac u gadiyo, mar saxrada uu ka qaado, markaada markaasi uu ka qaado, taasoo markaasi mursal ay u dheer tahay dhafar iyo daal iyo sidoo kale soo jeed badan iyo sida ugu walwalayo walaalkiisa. sidaa darada anagana aan ugu walwalno, aan garab istaagno. ila mursalka maanta arkaysa ma mursalkii hore ee entertainment waxyaabo badan idin siin jiray, wuu jecel yahay farxadda aan idin siiyay marka qaar, laakiin weli waxaa hortaagan walaalkiisa iyo marxaladda markaas uu ku jiro. weliba waa walaalkiisii ka yaraa oo hadda da'aadda 20 markaas sii galaya. Mascuud ayaan soo dhaweynayaa. anagana waxaan u baahannahay dhammaan idinka codsanayna dal iyo dibad meesha joogtaanba in aad soo garab istaagtaan, aadna ku soo caabisaan wax walba oo lacaga ha yaraato ha badnaato oo markaasi faa'iido badan oo keeni karta. Mascuud ayaan soo dhaweynaya. Mascuud waa ku dhawaay booqashada ay soo booqateen aad ugu mahadsantihiin dhammaantiina. wallaahi waxaa jiifaa ku dhawaad 3 bilood, waana iil qof 3 bilood sariir saaran aanan istaagi karin oo lugtiisan dhaqaajin karin. haddana waxaa kasii ciishooday dadkii faa'iigii aan la socon jiray, aan wax la baran jiray iyo waxbarashadii iga habsaamtay. soo marka waxaan ka codsanayaa walaalaha muslimiinta Soomaaliyeed in dhibkayga ay u danqadaan, ee dareen gaar ah ay ii yeeshaan. soo marka waad dareemi kartiin qof dhibkan ku jiro. marka أسعار الحمين مسعود وفعنانيسا إن شاء الله تعالى وفعنانيسا إن شاء الله إله قرآن ما دنايو marka walaalaha muslimiinta intaasaa ka codsanaya. kabtan baara ayaa markaasi dareenkiisa aad u kacay. dabcan Mascuud wuxuu ahaa anaga marka laga soo tago nin saaxiibkeena ah. Mascuud waa dareemi kartaa wuxuu ahaa nin saaxiibkeena, nin garab istaaga, nin markaasi markaan muuqaalada duwan xitaa waxyaabaha yararka u baahnaa naga caawin jiray. haddii maanta la dhaho sheega inta nooga soo qaban ninkii waxa waaye noo keeni jiray, laakiin maanta sariir uu saaran yahay. marka wax duwan anaga YouTube aan duubayno waa isku dhaweyn. mursal iyo anaga marka meesha YouTube ku duubayno halka aad baa isugu dhaweyn. dabcan haddana marxaladaas oo ku jira oo aad markaas u ilmeynayo, waana wiil yar oo markaasi mustaqbal lahaa. insha allah wuu caafimaadaya mursal iyo dhammaan dadkao dhan emotional ay noqdeen. garab istaaga waa muhiim, iyo inaad markaasi dhammaan aan saacidno wiilka yar ee mustaqbalka markaasi lahaa, ee dadka gardara markaasi ay ku dhifteen isaga oo dabcan bajaaj saaran oo baawur markaasi xabad laga soo rido wadada nooga lax kaliya darteeda maskiinka loo dhaawacay. taasna waa xanuun. weliba xilliga la dhaawacay oo ay tahay xilli wadda jaamiyaysan ahayn oo kale naga hor leex mooto u saarnaa isii dhalinyaro kale isaga markaasi asabta aad iyo aad haddana hore ugu soo dhaqaaqeen. markaas wuu fiicnaa, laakiin khaliinkii iyo wixii kadib
damage aa soo gaaray intuu socday dhiigya ku horay dhibaatadan oo keenay waa ka xumahay marka dhammaan aan garab istaagno aan caawino waadna markaasi mahadsantihiin halkaasaan kusoo gabagabeynayna muuqaalka